السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوada kanaalkeeni bloggeeni muxtarif blog ay uga barateen casharadii taxanaha ahaa ee inoogu saabsanaa blogger. marka waxaynu qaadanaa xalqadeeni shanaad oo kamid ah xalqadaha silsilada ah ee bloggerka aynu kaga hadlaynay sida loo sameeyo website ku dhisan blogger iyo sidoo kale noqonaysa xalqadeena labaad ee editing ku saabsan. marka xalqadii hore editing ayaynu dhameystiraynaa. xalqadii hore hadii aad aragteen xasuustaan waxaan halkaas magaca ka soo bedelnay bartan automatically inuu soo galo title-ka ayaynu ka dhignay. sidoo kale waxaynu ka dhignay halkaas magaca ka bedelnay iyo bartan kale halkan sub-menu-gi business ku hoos jiray aynu ka saarnay. sidoo kale halkan si akhri waynu bedelnay iyadana marka xalqadan waxay noo harayba way iska kooban waxay noo haray kaliya find us on Facebook saynu isticmaal lahayn page soo gali lahayn iyo sidoo kale waxay noo haray saynu sub-menu-gan uga saari lahayn bartan waxaan jeedaa wayn ka saarnay mid aynu soo gelinay tusaalahay games oo kale ama business-keenu ka saarnay mar labaad aynu soo gelinay. marka saynu taa u sameeyno waxaad tagaysaa bloggaagii bartii template ayaad ku dhufanaysaa kadib edit template baad soo raranaysaa sidii hore xalqadii hore aad ka soo daawatay halkan aad imanaysaa. markaad bartan timaado aynu ka sii wadaynaa. marka ugu horeysa waxaynu sameeynaa unorder list ayaynu sameeynaa ama sub-menu wixii aan ku sheegay oo ah business inay hoos keeno sub-menu u sameeyno. markaas aynu sameeyno control F baan sameeynaa sidii markii hore kadib waxaan qoraynaa qoraalkii halka ku qoran ee business aynu qoraynaa si inoo soo saaro barta business ay ku taalo. marka business halkan ay taala marka business ma hoos yimaadaan wax kale waad aragtaa business fashion ba ku xiga fashion bu sub-menu hoos imanaya. marka fashion waxaad aragtaa sub-menu 1 sub-menu 2 iyo sub-menu 3 ayaa hoos imanaya. kanay rabnaa anagu business oo kan ah sub-menu hoos yimaada oo sida kan oo kala inaan hoos gelinayo rabnaa. marka saynu hoos gelino bartaas barta business calaamada /a ayaa ka dambaysa. marka bartaas ayaad leen cusub bilaabaysaa kadib halkan aad keenaysaa waxaad leedahay unorder list samee ayaad leedahay unorder list samee baad leedahay kadib enter baad siinaysaa hoos baad u baxaysaa barta calaamada waa inaad hore u soo yara durkisaa. unorder list calaamadeeda halkan ka bilowno inaad hore uga yara baxdaa saas oo kale mid hore uga yara baxdaa ama laba jeer ka yara bax saas oo kale list baad leedahay hadana koodkan waad xifdaysaa waa marka la sameeyo sub-menu-ga qaabkan oo kale loo sameeyaa list baad leedahay. marka listigana inoo soo xidh kadib intervene leena hoos bay u degnaa hoostan loo degdegay macnaheedu waxa weeyaan si koodka hadhow aynu kala saarno oo aynu soo helno si fudud u akhrino sababtoo ah wixii hoosta iska geliso ma akhri kartid hadhow. kadib waxaad leedahay href waa marka link la sameynayo oo kale link ayaa la sameynaa. marka internet qoraysa adigu href ayaad qoraysaa kadib hash ayaad halka gelinaysaa hadana calaamada yar baad gelinaysaa double quoteska midkeeda ah ayaad gelinaysaa enter baad siinaysaa hoos ayaad u baxaysaa kadib waa soo yara durkaysaa maxaad ku dhex qoraysaa waxaad ku dhex qoraysaa halkan waxaad leedahay sub-menu waa magac aynu bixin doono menu sub-menu 1 aynu reeka kadib enter baan siinayaa hoos baan soo baxayaa bartan ayaan imanayaa halkaas kadib waliba waxaan ku dadaalayaa inaan labada calaamadood isku beego ee angle saas oo kale kadib waan ku soo xirayaa barta. marka sub-menu 1 ayaan nimanka sameeyay marka hoos baynu baxaynaa in dhameystirno sub-menu-yada dhan aynu sameeyno sidii oo kale soo durkaysaa marka bartaas sub-menu 1 ayaan ku sameynay. marka waxaynu soo xiraynaa unorder listigi waxaan jeedaa list waa kan aynu soo xiraynaa barta ku soo xiraynaa. marka koobaad waxaynu sameeynaa unorder list weyn ku dhex sameeynay link weyn ku dhex sameeynay kadib linkiga waan soo xirnay listigiina waan soo xirnay. marka hadana bartaas ayaynu waxaan ka bilaabaynaa list kale markaan uu labaan sameynaya adaa kuwa kala sameyn doona waqtigan inoo ilaalinayaa in aanu inugu dheeraan. marka baad leedahay kadib href oo markaad linkiga sameynayso ayaa koodka la qoraa href kadib waxaad sameynaysaa hash inoo dhex geliyo imika hashta
markaad sameynaysaa lasii dhexgeliyaa hadhowaad bedelaysaa si qofkii uu garto meel kastoo haasha. waa standard, waa laisla fahmayaa meel kastoo haasha in linki lagu bedeli doono ayaa laisla fahmayaa. kadib kana waxaan u bixinayaa sub menu 2 ayaan u bixinayaa. marka labadaas aan ku sameynayaa waan iska soo xirayaa. waxaan leeyahay halkan intaan imaado waxaan soo xirayaa waxaan soo xirayaa marka koobaad linkigii waan iska soo xirayaa. kadibna hoos baan u degayaa, waxaan soo xirayaa listigiina waan soo xirayaa, hoosna waan u degayaa, waxaan soo xirayaa unorder listigii ayaan soo xirayaa. unorder list, unorder listigii ayaan soo xirayaa. waliba xagaan yara Turkiya. kadib save template baan leeyahay. waa inaanu error casaan inoo soo saarin. hadduu error casaan ku soo saaro koodhkaaga waxbaa ka qaldan weeyaan. marka wax error isa waa inaanu inoo soo saarin. saad aragto wax error isa xagan kama muuqdaan. mid error isa inoo soo saarin, calaamad casaan inoo soo saarin. wayn save gareyn template-keeni haddaan bartan ku noqono aynu refresh niraahno. maxaynu horta sugaynaa? waxaynu sugaynaa aan rabnaa fashion waxay leedahay submenu 1, submenu 2, submenu 3. marka business aynu rabnaa inay submenuyada noocan oo kala ah ay hoos galaan oo markan mouse-ka dul geliyo ay noqoto hoosteeda ka soo baxaan submenu 1 iyo submenu 2 ay rabnaa. aan refresh gareyno. markaynu nimaadno business maxaad aragtaa submenu 1 iyo submenu 2 ayaynu bixiyay. marka kuwani waa magac. meel kastoo submenu taalo waxaad ku bedelinaysaa magaca aad doonto ayaad ku bedelinaysaa. kaas waa sida loo sameynayo submenu. waxay noo dhiman in aynu sameyno bartan find us on Facebook. waxaan yiri page-kaaga waxa uu leeyahay cover ayuu leeyahay page-kayga oo kale. coverkiisaynu soo gelin karaa, macnaha cover sawirka ka dambeeya page-kaaga iyo magaciisa iyo dadka la gareeyay waa in halkan ka muuqdaan. sad bloggeena ka aragtay sideen halkan u soo gelin karaa si aan halkan uga xayisiyo. haddaba si bartan find us on Facebook ay kugu qorantay aad u soo geliso page-kaaga Facebook aad ku leedahay coverkiisa ama muuqaal ku saabsan aad halkan u soo geliso iyo dadka la gareeyay, waxaad tagaysaa bartan aad tagaysaa. waxaad tagaysaa website-ka dhinaca la yiraahdo www.facebook.com/developers ayaa tagaysaa /developers. kadib waxaad ka dooranaysaa barta docs, waxaad ka sii dooranaysaa social plugins. kadib waxaad tagaysaa page plugin, waxyaabaha page-ka la soo geliyo. markaan ku leeyahay coverka Facebook oo kale waa kan oo kale, muuqaalkan oo kale soo gelinaysaa. sidaa maxaad sameynaysaa? halkan waxaad aragtaa URL baa lagu dhigay. URL-keebaad horta u qaadaysaa baa lagu yiri. marka waa inaad gelisaa halkan. halkan waan masaxaysaa. tusaale ahaan waxaa leeyahay www.facebook.com/muxtarif ayaan rabaa page-kiisa inaad soo qaado ayaan rabaa. kadib wuxuu leeyahay show page post. page-ka postooyinkiisa ma ku tusaa? maya, calaamad saxda ka qaad. page-ka saasoo kale iga tusaya, qaabkaasoo kale iga tusaya. waa ka muxtarif saasoo kale iga tusaya. inta la gareysay saasoo iga tusaya. kadib get code baan leeyahay, code-kiisa page-ka hel. kadib intan hoose ayaan soo copy gareysanaya. inta hoose code-ka intiisa hoose, inta sare ma taabanayo. copy baan leeyahay. waayo marka copy gareysto waxaan la tegayaa halkan aan soo gelinayaa. marka waxaan la tegayaa bartii aan ka maamulayay blogayga. kadib layout halka ay ku qortay ama layout sad luqadda u taqaan halkaas aad tagaysaa. waxaad ka dooranaysaa find us on Facebook baad dul tagaysaa. edit baad leedahay. halkan haddaba hadday wax ku qorayin ka masax, haddii kalena right click inta dul siiso paste dheh. halkan dabeeta magaca waad ka bedeli kartaa find us on Facebook. macnaha magaca soo baxaya meesha ka soo baxaya find us on Facebook, naga hel Facebook. waxaad doontaad ku qori karaysaa find us on Facebook. kadib save ayaan leeyahay. haylaawin save taa. sidoo kale haylaawin save arrangement, habeynta aan sameeyay save kare. halkan aan tagayaa refresh page-kayga. maxaad aragtaa? waxaad aragtaa halkan waxaa la soo geliyay page-kayga. iminka page-kayga Facebook haddaan galo sawirka yaala waa ka muxtarif loogada yaraa casanka. sidoo kale baagina coverkuna waa ka oo noocaas. marka labadaas ay yaala qaabkaas uu soo dhigay dadkii la gareeyay halkan soo dhigay be the first to like oo kale.
haddaba labadan ma kala horreysiin karaa oo find us on Facebook iyo popular posts ma kala horreysiin karaa imika find us on Facebook waa horeysa popular posts ma soo horreysiin karaa ha waa soo horreysiin kartaa waxaad tagaysaa qaybtan layout waa dhigaalka markasta layout of Soomaali waxa lagu yiraahdaa dhigaalka qaabka wax loo dhigayo marka find us on Facebook ay soo jiidaysaa saraad soo maraysaa save arrangement baad leedahay imika maxay sugaynaa in la horreysiyo imika waxa horeeya find us on Facebook baa horeeya popular posts kana u dambeeya waxaan rabnaa popular posts inuu xagga sare soo maro uu soo horeeyo ay refresh gareyno horta save arrangement aan yiraahdo kadibna refresh gareeyo waxaad rabtaa popular posts ay la soo horreysiyay postooyinka ugu caansan kuwan ugu caansan maaha waxaad soo gelgelinaysaa adigu sorry kuwan ugu caansan maaha waxaad soo gelgelinaysaa laakiin dad badan baa madaxweynaha oo safar shaqo u baxaya ay akhriyeen dad badan kadib kolba tirada akhrisaa markastoo badatay kan hore ka badato isagaa soo horreysiinaya automatically waxaan wadaya laakiin adu dhigaalkii baad kala horreysay labadan aad kala horreysay dhigaalkoodii halkaas ayaa xalqadeena editingku inoogu soo dhamaatay wixii dambe ee su'aalaha rabto inaad iga soo weydiiso waan ka caawinaya iga soo weydii markasta haygala baqayn hana la baqan su'aashaada inaad soo weydiiso wixii kala dheeraadiya adigu isku day wax aanad isku daynay soo weydiin isku day marka hore halkan control F dheh kadib page-kaaga halkan aad ku leedahay wax kasta oo ku saabsiisan oo rabto bal inaad in ka bedesho hatta hadaad rabto kuwa inaad saarto oo kale error page-kaas oo kale kaliya ta maxaad u baahantahay in aad soo copy gareysto waxa qoraalka halka ku qoran waa in soo copy gareysta salaan error page ama sidiisaas oo kale aad ku qortaa control F kan kadib haddii xataa aad rabto inaad ka saarto in isku soo day adigu inaad ka saarto line-ka meesha isku day wixii aad isku daydo baa taqaanaa marka line-ka home about contact error waa link-ga inaad ka saarto isku day hal mid baa inoo dhiman oo aan kugu sii daraya anigu halka midna waxa weeyaan halkan inaan ku qorno business ama mid kamid ah menu-yadeeni hal mid menu-looni marka menu-yadeenan imika kuma xidhna webka halka inaad webka ku xidhaa mid kasta kan oo kale waa inaan yiraahdaa muxuu ahaa magaciisi waxaan leeyahay utag muxtarif testi marka lagu dhufto games waxa tagtaa muxtarif testi.blogspot.com/search/label/games oo soo qorto kadibna save dheh intaas muxtarif testi.blogspot.com/search/label intaas aad soo copy gareysanaysaa inta meel kasta oo link ah oo magacan leh link maxaan ka wada home markaan tago home geeyo business weyn u geeyo fashion weyn u geeyo sports weyn u geeyo kuwan mid kasta oo kamid ah ciwaanada halka taxan waa inaad u samaysaa qaabkaas oo kale intan qoraalkan yar waa inaad ka horreysaa copy marka sports oo kale meeday imika sports wata halka hash taalo masax waan gari link baa loogu talagalay ku besti garay label wixii ka dambeeya raaci magaca meesha oo ah sports oo kale kan sidoo kale submenu-yada waa /submenu oo kale ka dambeeysiinaysa marka kuwa waaweyn baan ku geynayaa oo kale home waa sax business submenu buu leeyahay marka submenu kastana waad gelinaysaa qaabkaas kala duwan gelinaysaa download kan oo kale uu ku jiraa marka halka ma aragtaa link baa la geliyay waad aragtaa link baa la geliyay inaad aragto iyo in kale mooyaane linkiga waan masaxaya kadib control V baan leeyahay /label/magacan download this template marka uu dheeriyaa iska soo qorto iska soo copy gareysto /label/control V waxaan samaynayaa haddii kale hadhow games markaan tago casharadii game aan geliyay ima soo gelayaan casharadii games kaliya taan ugu talagalay ma arki doono oo ma gelayaan games markaan ku dhuftay ima geynaya home-ka bay taagnaanaya kan link uu noqonaya tigara kadib refresh garee imika games markaad ku dhufato waxa uu tagayaa meel banaan wixii dambe oo dhan adigu isku soo day oo ku dadaal waxaanaad barato wixii su'aalahan iga soo weydii xalqadu way sii socdaan silsilada marka waxa inoo dhamaaday dhammaan wixii editing ahaa oo dhan halkaas inoogu xirmay ee webka ku saabsanaa waxa kaliya inoo haray waxa weeyaan in aynu wixii inta ka dambeeya samayno sida webkeena tusaalayaal looga dhigo web